Aktarad caan ah oo Muslim noqotay oo iyada iyo ninkeeda maxkamad Mumbai la soo taagay. Fadlan hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janaalkeena, fadlan subscribe noo saar, like saar muuqaalkan waayo dad badan ayuu gaarayaan. Aragtidaadana comment noogu reeb. Atariishada sanadkii 1990 wixii ka dambeeyay Bollywood-ka ka shineed ee Mamta Kulkarni iyo ninkeeda daroogada ka ganacsada caan ku ah ee Vicky ayaa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Mumbai. Dhowr jeer kala duwan ayaa labadan lamaane waxaa lagu soo eedeeyay kiiska daroogo dhoofinta iyo ka ganacsiga. Sanadkii 2000 ayaa ka mid ahayd iyo Abriil 2018 markaas oo booliiska ay xireen laba nin oo daroogo ka ganacsato kuwaas oo sheegay inay u shaqeeyaan Vicky oo ah aktarad Mamta Kulkarni ninkeeda. Vicky ninkan la yiraahdo waa xiddig caan ku ah daroogada waxaa jirtay xitaa 1997 in lagu xiray xabsi ku yaala Dubai kadib la qabtay isagoo sharci darro ah ku dhoofinaya daroogo. Mamta oo jecel daran u qabtay ninkan ayaa la sheegay in xabsiga Dubai ay mar walba ku booqan jirtay saaxiibkeed waxaana ay guursatay isagoo ku jira xabsiga. Xitaa Kenya ayaa lagu xiray lamaanahan xilli Mamta la sheegay inay diinta Islaamka qaadatay. Xusuuso aktaraddan waa tii ku jirtay filimkii Govinda ee Nasiib.